بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي دمان ملك استودين كجوكتين waxaan idin leeyahay nabadgelyo naxariista ilaahay dusheena ahaato soo dhawaada Ramadaan Kariim. Ramadaanka fadligiisa barakadiisa Allah na waafajiyo, acmaasheena saalixana Allah naga aqbalo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkeena macaadka noo zaaidiyo, barakaadkana na siiyo. barnaamijkeena qisas wadikr qisooyinkii laga faa'iiday quraanka suuratul baqara akhrinteeda iyo fawaaidkeeda kabar abaayo cusub waa hadane waxaan idin sheegay ahbaabi suuratul baqara ayaan tan way badan tahay waan wada qisooyinkeedii iyo maaragtay fawaaidkeedii laga faa'iiday aad u fara badan yihiin inaan hadana idin soo dhaxgelin doono insha Allah suurada kaleetood iyo dhikriga intiisa kaleetood hadii haalid xawqalada iyo hadii haalid la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin iyo maaragtay warda fara badan iyo inaan idin soo gelin doono fawaaidka laga helay marka insha Allah mideeda kaleetoodna waxa igala soo xiriiri kartiin oo qisooyinkii igu soo diin kartiin qaybteeda Snapchat-ka hadii aad taqaanaan dadka Snapchat-ka haystaan hadayna haysanin telefoon lambarkayga Kenya inta ku soo qoraya ba WhatsApp-ka qaybta WhatsApp-ka baad fariinta igu reebaysiin insha Allah ana idin soo jawaabaya haduu Ilaahay idmo qisooyinka kaleetood idinkan ahaysaan فوائدك كفائدين نقصو بير أد ليبانتي برنامجكيني dadka cusub abaayooyinka cusub waa soo dhawaadaan dileeyahay mideeda kale toodna gabdho far badan waxa jiraan aan arkay commentiyadooda oo dhahayaan xawqala maxaa laga wadaa iyo waxyaabo kale tood gabdhaha walaalaha ee reer ahli dhikri ee maaragtay groupka hore maaragtay qeyrkeena macaadka uga tirsanay gabdhaha kala soo dhaweey insha Allah jawaabahan idinka sii kartiin insha Allah Allah idin barakeeyo Allah idin xifdiyo dacwada waxa u baahan tahay in la iskarb istaago oo la isla shaqeeyo ma u baahno maaragtay shakhsi kaligiis intuu lagu fiirsado marti kamid hidin idinkaba wax yar oo khayr hadaa qortiin miisaanka xasanaadka idin saaranta maanta ehna helaysiin qofkaas hadaba aad u qorto tiraada abaa xawqalo waxa laga wadaa la hawla wala quwwata illa billah qofka markuu dhikrigaas akhriyo adiga faa'iido far badan kugu jirto oo ku soconayso mataqaanid meeshay gaarsiin doonto mataqaanid inta qof ay gaarsiin doonto inuu ku barako baa laga yaabaa marka insha Allah ta'ala binillah karima aan wada shaqeeyno dacwada waxaan ugu dagalayaa qisadayna insha Allah gabadha abaaya ee warfaadsaneed sixir la sixray waa la sixray heer gurigeeda ka cararto heer waxay gaartay ninkeeda ee isfahmo way dhibaato far badan ay haysatay waxay bilowday abaaya in maaragtay ugu soo birto kadibna suuratul baqara ay laasinto ay barato ayna laasinto waxay dhahday abaayo wax badan dhibaato fara badan soo armaray ayadoo maaragtay qoladii dhibka ii geysatay bursanayaan ayadoo maaragtay maxaa dhahay meelihii aan dhibaatada liiga soo siiyay iyo waxyaabihii xanuunada qaarka ugu horeeyay aan ka soo qaaday iyo meelihii dhan aan la itusinaya dhahday wax badan aan ku riyooday tir isku soo aruuriyo hore in kugu sheegay ani waan soo koobay in ku dhah isku soo aruuriyo waxay dhahday abaayo alxamdulillah aad iyo aad u fiicnaaday ma maleyn kartid sidaan u fiicnaaday waxaan helay fudeed fara badan waxa macnaa culeyskii dhibaatadii Ilaahay iga dulqaaday waxay dhahday waxaan helay in gurigeyga inuu noqdo mugado raxma inay ka dhalato raxmad iyo naxariis iyo kalgacayl iyo xub inuu ka dhashto inuu maaragtay gogosheena aad u fiicnaato dhibaatooyinka faraha badan aan haysan Ilaahay inuu naga dulqaado in maaragtay waxaan helay tir farxad joogto ah waxaan helay tir in maaragtay wax walba oo dhan oo Ilaahay ii fududeeyay waxay dhahday qofkii dhibaatada ii geystay habeen kasta waxaan ku riyooday tir asigoo ooynay oo rafaadsan habeenkii igu yaabka badnaa waxay tir waxaan dhahay tir dhowr jeer waxay tir horta waadii soo sheekadaamay wax badan anigoo ma tagaayo oo dhibaatooyin aan ma tagaan ku riyooday waxaan ku riyooday tir anigoo maaragtay leef Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax iiga saarayo marka waxay dhahday ugu dambeyn qofkii waxay dhahday wuu ii yimiday markuu ii imaaday leefna wuu igu soo wici doonaa tir qofkaas laakiin waxaan habeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorkay ka bariyay tir in qofkaas dhibaatada ii geystay inuu Ilaahay jisadiisa siiyo Ilaahay oo dulmku ma fiicna iga qabo dacwadaada aan ku furay dacwadeeda ku furtay habeen madow saq dhexe salaatu leelkeeda iska dukato iska seexatay waxay dhahday waxaan ku riyooday qofkii oo yimiday oo rafaadsan oo daciifa diifta ka muuqata aad fajacaysid xagga fadhiyo markaas waxaan iraahdaa yaa rab markaan iraahday waxay tir matag ka wareega matag wasi xanuunsada tacbaan oo noqoya yaa rab markaan dhahaba waxay tir dhulku ku dhaca
qofka waa rafaada yaa rabbi markaan dhahab waa sii sakaraada tir yaa rabbi markaan dhahab waa sii sakaraada tir yaa rabbi markaan dhahab ilaahay gacmaha u taagta waa sii rafaa oo sii sakaraada because abaay ducaday badsatay aad u ducaysa jirta suuratul baqara markay dhamayso sida aan hadba markay aan idin soo sheegay tareerinka idinku sii qofka markuu quraanka akhristo salaatul leelku u kaco inuu ilaahay barya fiican teeda kale markastan waa idin sheegaya suuratul baqara kaliya maahan quraanka inta taqaanida kugu filan inta taqaan akhriso in maaragtay hadii aadan aqoonin qul wallahu saddex jeer akhrisid quraanka sodonkiisa juz oo akhrisay lamita akhriso hadana inta adduunka ku noosha waa haysataa chance madrasada iska gal hadaad waqti u haynin oo maaragtay online xataa ina ku barato aadan awoodin marka ilmaha ka kala seexdaan smartphone-ka ay fiirsanaysid quraanka soo degso dhageyso asoo lees baraayo maaragtay tafsiirki wixii dhan ku jiraan maalinta qiyaam waa lagu weydiinayaa teleefankaaga ma furtay ma ka barakartay maxaa uga baran weysaa lagu leeyahay hadaa tiraahdo aniga ma bixi karin ilmo yar yaraan haystay xilliga ilmaha ku seexdaan quraanka baro ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka hay bari salaatul leelkaaga iska duko dhibka ku haysta ilaahay waa ka dul qaadaya hadaad nimcad haysatay nimcadaada ilaahay ku zaa'idinaya hada awlaad maaragtay kugu madxadkan ilaahay ku barakeynaya wayna soo socotaa awlaad fara badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka hay ku hanuuniyo ku caafiyo waalidkooda ducooyin iyo khayraad ay la yimaadeen waa soo wada insha Allah iyo wardiyaal fara badan ay la yimaadeen mideeda kale waxay dhahdaa abaay sheekada idin dhameystiraya gabadhii waxay jiray sidii naagta saas u aheeday oo matagaysa waan aqaanay tiri qof aqaana waayo tir laakiin aan ku degdegi karin oo aan markaas macnaha aan dhigi karin waxaan igu sameysay iska dareemi kartiin oo waalid ah waalid dhala ma aha waalidku dhalan waxaas kuma sameeyay subxaanallah waxa meelaha ka maqlay kala hooyadii waxa igu sameysay waxaas wax jira ma shaydaan isku diray dadka iska jira nimadeeda kala dadka shaydaanku isku diraa jinka bahalka leerada ku isku diraa waalidkaaga kullee waa ku sixray walaalkaaga kullee waa ku sixray walaashaa kullee waa ku sixray qof kasto beenu ka sameysanaya habeenku isku soo shabahaya ku imaanaya faamiladu ka dira waxa sadaqaysanin insha Allah ta'ala biidnillah karim ahbaabi quraankiina idinka iska akhrista qofkii wax ku sameeyay asaalabadiisa lagu kugu imaanaya sa ku dhahay waxaan iga waa ku bariya icafi hadoo ku dhihine asaadiban adoo dib ku daayay waliga qof dulminin qof ku dulmin ilaahay ku daa insha Allah ahbaabi marka waxay dhahdaa baayo marka dambe qofkaas xataa madax adeegiisa marba tirinto cafi weydiisto caadi u soo waca wuxuu dhahaa maxaa akhrisataa suuratul baqara ma bilowday suuratul baqara bilaabay waa akhristaa marka habeen kasto asoo qofka rafaadsanaan ku riyooda ay dhahay anyway qofkaasna waa qof waxay tiri dagaal naga dhaxeeyo oo aan naga dhaxaynin inay tiri maaragtay raxmad shaydaanku dadku markuu isku diraa ha aamanin dadkini hadda waxaan aan soo sheegay qof kasto ku riyoodo eelkiisa qaraabadiisa iyo dhihin qof heblo arkay iyo ama waxa ayaga ugu sameeyeen iyo ahbaabo idin kaga digaya shaydaanku idinka xoog badinin ilaahay haduu soo kuma caafinin alxamdulillah hada min fadli rabbi de محمد إلهي كسية يا عفماتك إلهي كسية كو إلو وحقول بولو كسمي قف كدب وحكو سمي ولا كسمي أساق إبقوا وجرا أنا سحر ما إنكراي وايو حكمتها إلهي سبحانه وتعالى بقولك هاي وحو الشيء إني جران marka hadan inkira dad ministinteeda qalis halis gelinaya hadan iraado sixir ma jiro hadan iraado ilmo jirto daayira jin ma jiro diinteeda halis gelinaya because ilaahay wuxuu uu sheegayaan aan beenaynaya marka waxa way jiraan of course way jiraan laakiin aaminina oo dadka ehelkii qaraabada shayaadiinta isku dirtaan idinka faa'iideysan qaar sax weeyihiin qaarna sax maahan marka anyway adinka iska dadaal oo quraankiina iyo khayraadkiisa nimcaadka isla imaado ahbaabi wixii sharana ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka naga qabto gabadhan abaayadana qisadeeda ugu yaabka badneed waxay ahayd waa qisooyin kuwa badnaayeen baa ugu yaabka badan waxay dhahday qofkii dhiban oo silacsan markaan anigu yaa rabbi iraado ma tagaayo hadaan maaragtay aan maanta aan quraanka badiyeen qofkii socda ee imaanayto oo tacbaan oo hada tacbaan tirsada xal ugu riyooda oo la caadi ay imaanayto oo waxay tiri asiga dhanba laaban ورفاتسن مرنا ولا إيسو شيء أمرجنسها لو قاضي لإدهاتر إلهي سبحانه وتعالى بقرك هذا حق الله وافجيه إلهي سبحانه وتعالى